بسم الله الرحمن الرحيم dardaaranka iigu dambeeya waxaan kaga tegayaa qolyahan oo lafta ah oon u sheegaya 2 sano waxa dalka Itoobiya ku soo foolay 2 sano u jumlaynaya si maadaama aan khadka ka baxayo oo dardaaranka iigu dambeeya Soomaalida aan u sheegay reedkay saaran tahay idinkana dardaaranka iigu dambeeyo insha Allah taala codka iigu dambeeya internetka laga maqli doono oo aan rajaynayo inuu noqdo waxaan idin siinayaa shaxdii aad ku noolaan lahaydeen 2 sano soo socoto iyo 2 sano waxa Itoobiya ku soo foolay inta taagan waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iidiyo korneelada ay ku dhaartaan Tigreega mid ka mid ah oo la dhaho Sagay Gabratasay oo nin aad cajiib u ah oo dadka aqliga lagu tariyo yacnaha Tigreega ugu aqliga badan ka mid ah isbiiju maanta u jeediyay madaxweynaha yacnaha ninka la yiraahdo oo IBRF secret ah ugu jeediyay maadaama aan sirjoonkiina ahay baan rabaa inaan idinla qaybsado wuxuu u jeediyay maaragtay Abiy Victor Rio wuxuu ku yiri Victor Rio ma ogtaa wadada aad saaran tahay aan ku sheego anagii idinka yacnaha habar karsxun iyadana ku kaala maamahdi ahayd buu soo qaato axmaari ah oo iyadu uu yiri dibku idan wada gaaraya hadana IBRF waxaan rabaa inaan idin cadeeyo inuu ninkaasi cadeeyay in Itoobiya meel xun ay saaran tahay wuxuu yiri ninhu waxaad soo gelisay dhammaan ururadii mucaaradka ah oo dhan oo dadka ay wada taageersanayeen baa dalka Itoobiya soo gal waan soo gaabanayaa ujeedkiisa rabaa inaan ka soo qaato waayo waqtiga ma haya aan ninkaas khudbadiisa cajiib ah meelo badan taabanayso idin faa'iideyn lahayd inaan hadda galama doonayo waxaan rabaa inta muhiimka inaan ka soo qaato wuxuu yiri waxaa jiru yiri dad badan oo mucaarad ayaa soo galay urur mucaarad arsabi joogo ugu waaweyn yihiin buu yiri ururkii Oromo Liberation Front iyo Gimbot 7 iyo ONLF dadkana waa dadka dhan Itoobiya iyaga taageersan buu marka hadana IBRF dhamaantanada waxaad ogaataa buu inay doorasho kugu soo fool leedahay dalkan hadda saa u fasaxday oo sidaas aad ugu dhigtaa si dimuqraadiyada adigana waad ku kursi laadahay IBRF wax la dhahana la maqli maayo baarlamaanka ragga joogana la maqli maayo dhamaantanada dhan biyahan badan baan naafin doono yiri wana ka tagi doonaa xukunku yiri dhamaantanada haddii inta ka hor dadka aysan istagaalin buu yiri marka waxaan rabaa buu yiri maanta inaad xakamayso oo dadkaas siyaasad degan sidii loogu guuleysan lahaa 4 sano hadda aad dejiso soo socoto haddana aad wadadeedii qaado oo aad la soo baxdo gacan bir ah ku xakameynaysa nimankaas iyo waxyaalo badan oo aadan u wada fasaxin oo aadan banaanka ma aragtay madax banaani wada buuxdo aadan siinin shacabka saysan u raacin marka oo aad sameeyso buu yiri colaado badan oo shacabka ka horkeenayo waxyaalo badan yacnaha tusaale saas ka wadida hadda ana afku idinku dhufanay ujeedku wuxuu ahaa waa ku xilalaana waa ku wax la'nahay buu yiri saaxiibo dhamaanteennada waa hadal cad oo sheegay marka intaasan ka soo qaadanaya ujeedku kalaha waana wax dhacayo waxaan rabaa ONLF 2 sano inay isu diyaarso inay hanato dalka deegaanka maskax ahaan aqoon ahaan wadaninimo Soomaalinimo inay u hanataan ka codsanaya in ay cadaaladda 99% ee cadaaladda xooga saarto oo deegaanka qof kasta oo ku dhaqan oo Soomaali ah ay u fasaxdo ururka in ka qayb noqon karayo 2 sano ha ku xisaabtamina carruurtan yaryarka ee hunguriga qaadaysa ee jigjiga isku dagaalayso waxaan way iska dhamaanayaan ha la tartamina iska daaya nimankan iimaanka Ilaahay ka qaaday Tigreeda ma aragtay Oromo Itali war nimankiina aqoonyahanka Oromo nootale hadhine idinka xisbi sameeysta war idinku xisbi sameeysta xisbi ahaan u soo gala hadaa rabtaan xataa kursiga aradinaysan xisbiga deegaanka ka qayb qaata oo xisbi ahaan ku soo gala iska daaya naag idin noqon Oromo oo inaagayso oo kursi ugu fiis war waxaas wax laga soo dhinto lagu baabay waaye war waxay ku tiri doonto ku shaqeyn dirto mala war dalkan waa lagu kala tagay marka taasna dhalinyarada kale intaan sheegaya oo ololeynaysa taasan kala dardaarmaya oo waxaan kala dardaarmaya sulaxaas ku wada hawsha xornimadii baa banaanka idin imaan doonta idinkoona dhibaato u marin waxba u gani gudaha dalka u gala gudaha u taga ilaa degmo ilaa gobol taga dalka dulqaad fara badan sameeya sidii ma artay mas dhiigi sidaa u xula dadka sidaa u xula xisbiga soo dhaweeya kii jaga rabo oo jaga doonaya siiya kii maamul rabo doonaya siiya si aad qalbiga dhamaantood ummadda halka degan aad u wada hanataan oo dhan 2 sano ayaa idinku soo fuulo idinkaga tagaya haddii inta ka horna ay burburtana waa idin sheegay inay burburayso haddii Ilaahay yiraahdo haddii la xakameeyo oo inta la xakameeyana waxa dhacaysa marka
dagaalkan Tigreega hadda iyagoo Tigreega waxay aaminsan yihiin laba jiro Ethiopia inay burburayso waan runtood oo waxay ku burburaysaa doorashada marka la dhaho hadda ninkan korneelka soo sheegayo wuxuu yiri deegaanka la isku dagaali doona doorashada xisbiyada far badan doonto dadkii baa kala gogoy doono dadkii midnimada Ethiopia dhiman doonto waxyaalo badan oo sheego hadda halkan ka soo qaadeen ayaa cad taasi marka waa jans ONLF waxaan u sheegayaa jansigan si suluxa dalka u gasho waxaan hubaa boqolkiiba boqol jansiga dadka waxa ka faa'iideysan doono inay Soomaalidaas westernka Soomaali galbeed ay tahay idinkan aad hoggaanka u qaban doontaan baan aaminsanahay idinkan waa in kala dardaarmiki jansiga la socda Ethiopia meel walba doorasho ka dhici doonto 2 sano wax ka yar labadaas sano wax ka yar ee inta ka dhici doonto 2020 meesha rajinay Sunfly tu Soomaali waxa dhici doonto doorasho guud degmo ilaa Ethiopia meel walba xisbiyada ku soo baxaan la arki doona sida aad u hanan lahaydeen mustaqbalka u diyaar garooba dadkan u diyaar gareeya soo celiya qalbiga dhintay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee Ethiopia lagu beeray soo celiya dadka sidii hore aad ugu tirgelisan ma aha dadkii waa la dhaqan gidiliyay waa la diin gidiyay waxa waaye diin male baash beerta iska cabaan dadkii dad intii weey aad ku xisaabtamaysaan marka dadka waa inaad soo xirigelisaan oo aad sulux ku soo gelisaan oo aad dhaqankii 27 sano dhaqanka iyo diinta iyo wax kasta laga dagaalay dadkan dhaqan celis fiican bay u baahan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoon-yahanada waa la qayb qaadan doonaa waxaan leeyahay mar kale inta إن شاء الله تعالى أيام فلنا بإذن الله الكريم وحان إذن الله دمانتين ساسا ما أردت إذنكم هاد علينيا والكتغيا خير بان إذن رنجينيا وحان إذن الله أدير جروب الدلقا سيفوز بادكو هانا دونتان سلحا إيد كو سعدا سيدا كو سعدا وحوال بان ما أردت سلا يالا بإذن الله الكريم وان إذن كتغانيغانا وحان كسو قبينيا dalkii oo si fudud aad ku helaysan Ethiopia laba waday saaran tahay wadada burburka ee soo hormariyay haday dhicin oo ay dagaalka bilaabin waxa haafin doono dimuqraadiyad ballaaran oo hadda korneelkan sheegay oo aysan ka baaran dagin oo si kaliisa oo radi mucaaradka ahaa iyo oo la rabay buu yiri in 4 sano kadib aan u diyaarino ayaa hadda lagu keentay buu yiri IBRF nasaas ugu dhamaatay biro iyo wixii u shaqeyn jiro dhaw tagayaan biro dad cusub baan la wareegi doona afkaartana la wada aaminsan dadkan dimuqraadiyadaas aan kiin dad boqolaal baarlamaankan waa naga tanbadno IBRF dadana dadka in qaad doono yiri mashaq wax IBRF la dhaho 2020 ma dhici doonto yiri marka aan hadda xakameysano oo hadda aan qabsaysano oo hadda aan go'aan ka wada qaadano oo inta Tigreeg ka cararayso IBRF tana hadda burburina buu leeyahay oo aan dib ugu soo laabano ururkan IBRF ahaan aan u dagaalano buu leeyahay halkaas baashka gaadhay Tigreeg waxaan idin leeyahay dhamaantiin inta dhageysanaysa oo wana la fiinta kan oo la sulxaas idinku ogahay maslaxadaas idinku ogahay Soomaalinimadaas idinku ogahay isku day in u diyaar gadoontaan 2020 in dalkan aad la wareegtaan haddii xataa dagaaladan sukayo u si balaarin oo la xakameeyo dadka waxay u diyaar garoobi doonaan doorasho iyo dhul boraas iyo waxa imaan doona sidii 1993 ga soo socoto taasigaas marka idinka hadda si ballaqa dadkana si hanta si aad maskaxda kuwan cayayaankan Tigreega ay ka tageen 27 sano ee hunguriga raadinay iyo kursiga idamaad sharaftiinina ha ku ceebeynina ha haystaana labadaasna hadee rabaan ha qabsadaan hadee rabaan waxay rabaan ha sameeyaan labadaasna idinku sulxiina wata afaarihiinana wata hana ku xisaabtamina kursigaas hadii ma aragtay isku dayo in midnimada maskaxda inaad hanataan shacabka aad hanataan deegaanka aad hanataan mowqifka aad hanataan si aad ugu diyaar garowdaan xorriyada damba ha eegina kursigan xunka ee dulliga ee lagaga tagay ayax tag rib ciyaalkii Cabdi Ilay iyo balaayo idinka sharaftiina ma aha kuwii DDC ba halkan joogo kuwii kale halkan joogo kuwaas halkan joogo waxaas dulli ayaa joogo kortuban oo guri bas u raadinay akhri dunya aan dan kale iyo dal ka weynaada بنوني أنا عيارة وحان إذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.